wadahadallada u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya waxa ay ahaayeen tan iyo intii ay xukuumaddii Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ay dalka hogaaminaysay mid ay la yeelatay dalkaasi Soomaaliya inkastoo aanay ka soo bixin go'aamo wax ku ool ah. Xukuumadda cusub ee Muuse Biixi Cabdi waxa ay haatan ay gudagelaysaa sidii ay wadahadallo hor leh ula bilaabi lahayd xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. waxaana wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Saad Ali Shire uu ku dhawaaqay in sida ugu dhaqsaha badan leh ay wadahadal ay u bilaabmi doonaan Somaliland iyo Soomaaliya. maanta waxaan wax ka weydiiyay shacabka ku dhaqan caasimadda Hargeysa bal sida warkaan arrinkaasi waxaan ka qabaa in wadahadalka Soomaaliya la soo dedejiyo aanu waliba soo ugu dhaqsaha badan la fadhiisano waxaanu doonayay waxaanu diidanayo Soomaaliya ka wada hadalno. waxaan u arkayaa qalad baan u arkayaa anagu waxaan nahay dawlad jirta oo Somaliland la yiraahdo oo gooni isku taagtay Soomaaliyana waa Soomaaliya oo jaarkay oo halka iska degan marka waxaan leeyahay laba dawladood oo jaara oo aynu haano anu aragtida waxaan ka qabaa horta nin walba aragti gaar u leeyahay laakiin waxa weeyaan horta inaan arinta galno qoladeen wixii goosanay may ahayn bacdamaayna hadaba wadada isku faruurnay si aynu uga lug bixi lahayn nimankan aynu kala guran lahayn ayaa fiican falowgeeda la qabto haddaan ka hadlo arrintan wasiirka arrimaha dibadda waxay ka hadlayay horta waan taageerina haddaan nahay shacabka Hargeysa waxaan leenahay Somaliland maanta waxa u baahan tahay meel loo jiheeyo ma baahna iyo tan iyo hadal aniga waxay la tahay inay tahay eeg mabda liita inaan meel la fadhiisano horta waxaan u mahad celinayaa bulsha TV agaasimaheeda guud iyo shaqaalaha oo dhan waan u mahad celinayaa TV-gan kulli waa TV-yada ugu wax qabadka badan leh xagga arrimaha bulshada haday ray urur noqoto iyo haday waxyaabaha kale arrimaha bulshada laga qayb qaadanayo waa la marwan waana soo dhaweynayaa haddaan u imaado pointigan ah wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya ee dawladdan cusub ee Muuse Biixi kulli wadahadalladu waxa bilaabay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Somaliland ilaahay cimrigiisa dheereeyay Mr. Silaanyo oo furay xilkiina sida ogtihiin waxa la doortay madaxweyne cusub oo mujaahidkii wadankan soo dagaalamay Muuse Biixi Cabdi kulli madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaan aaminsanay inuu wadahadalladii halkii ay ku istaageen meel bay ku istaageen marka meeshii inuu ka sii qaado oo halka ka wado oo mira dhal yeeshay kulamo badan baa dhacay kulamadii hore dhacay wax way fureen albaabo hore way fureen laakiin intii dambe iyaguna ay xagga koonfurtuna ay ka jirtay electionku xagga Somaliland electionku ka socday ayaa wadahadalladii hakad ku yimid marka iminka haddii xukuumaddii kuwaasina xukuumad cusub ay samaysteen anaguna madaxweyne cusub dooranano aad iyo aad u soo dhaweynay madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi wadahadalladan waxaan rajaynayaa 90% madaxweynaha inuu guul ka keeni doono labadii goor horeba waxay ka baaqatay oo ay xaqooda ka xumaatay qolada marka anigu waxaan oran lahaa mar saddexaad waxaynaan had imika uga wada hadlay waxa weey horta marka hore intaynaan horta wada hadlin waxa shuruudo horta noqonaysa horta dad inay noo qarsanaadaan inay nahay wada jiro oo ma garanaysaa madax banaanidiisa iyo goonistaagiisu muqaddas yahay haddaba wadahadalladan la filayo in xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ay la yeelan doonto ay la geli doonto dawladda federaalka Soomaaliya ayaa laga dhur sugaya waxa ay ku dambeyn doonto Cumar Cali Ducaale Cumar Shabash telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Hargeysa.